أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي والله سبحانه وتعالى أنه مهي علمنا حين كنا لنهي ونعمك الله سبحانه وتعالى. إلهي وأنه مهي علمنا سبحانه إنه إلهي نسوق قارسي بشي رمضان لباقي بهدي الضنباء tobankii beri u dambeeyey ilaahay baan ka baryaynaa subxaana wa tacaala acmaasheenna inuu alleyna ka aqbalo iyo daacaadkeenna alleyna ka yeelo subxaanahu wa tacaala kuwa laga aqbalo. sadaqada iyo deequ iyo waxbixintu waxaa la odhan karaa waa zaadka iyo sahayda dadka saalixiinta ayaa ay soo sahay qaataan. waa waxaa dadka mutaqiinta ee ilaahay ka baqaya subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ugu waaweyn ilaahay loogu dhowaanayo ayay ka mid tahay deeqa iyo sadaqadu iyo waxbixintu. sadaqadu waa cibaado alla subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey fadligeeda ina allaha yajzi lmutasadiqiin alle waa abaaliyaa subxaanahu wa tacaalaa cidda wax bixsatay wax la baxaysa ilaahay wuu ka abaalinayaa subxaanahu casa wajal. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay yamxaqu allaahu aribaa wa yurbi asadaqaat. ilaahay ribada manfaceeda iyo macaashkeeda iyo asalkeedaba alla waa tirtirayaa waa baabi'inayaa. sadaqaadkana aada la baxaysaanna alla waa idiin kobcinayaa waa idiin barbaarinayaa rabbi subxaanah. wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin. alla wuxuu leeyahy wuxuun wixiina ka mid oo aada la baxdaan oo hormarsataan ilaahay badiilkeeduna siinayaa subxaanahu casa wajal. rasuulka sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam maalin maalmaha ka mida nin baa u yimi wuxuu ku yihi yaa rasuula allaahi ayu sadaqati afdal. rasuul allow sadaqo aan bixiyo la baxo tee ugu fadli badan. rasuul wuxuu ku yidhi an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiix. ninkan su-aasha rasuulka weydiinayo rasuul allow sadaqo aan bixiyo tee ugu fadli badan kama wada sadaqada nooceeda iyo tayadeeda ee wuxuu u jeedaa sadaqo aan la baxo oo wax sadaqaysto xillima weeye. xilliga ugu qiimaha badan ugu fadli badan waa xillima. markaas rasuul wuxuu ku leeyahay an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiix. inaad wax la baxdid adoo caafimaad qaba oo aan ilaahay jirka xanuunkaaga keenin aan cudur iyo xanuun dareemayn oo saxiixo caafimaad qaba. shaxiixun ay shaxiixun nafsi adoo nafta u lexjeclo laabaya oo maaragtay wax isku biirinaya oo wax dhiganaya xilligaa weeye inaa xolo baxdid. rasuul wuxuu ku leeyahay sala allahu calayh wacala aalihi wasalam isagoo weliba arrinkaas usii cadaynaya usii faahfaahinaya ta'malu alghinaa wa takhsha alfaqra. adigoo hodantinimo iyo qaninimo iyo inaad wax haysatid ee hanti iyo wax isku birinaya rajaynaya xagga kale adigoo fakri ka baqayo bini aadanku xilli kasta mar kasta uu caafimaad qabo waxna uu haysto uu ladan yahay wuxuu jecel yahay inuu sii joogo oo sii noolaado xilligana wax la baxdid adigoo caafimaad qaba
oo aan xanuunsanayn adigoo u lex jeclaabaya naftaada ilaa qofku hadduu xanuunsan yahay ama buko maalna ma rabo xoolana ma rabo waaba qofka wixiisa ka socday ka tagay weeye markaasuu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam wala tumhil sadaqadii waxa la bix lahayd jeebka gacanta dib ha ugu celinin waxaad bixin lahayd hala sugina bixi oo ha dib dhigin waxaad bixin lahayd xataa idaa balaqat alxulquum ilaa naftu halkaa kalxamaha isugu timaado halkaa isugu timaado dadku maaragtay ay soo kaa dultumaan oo war ma nool yahay ma ka baxday waa culus yahay dadku xilligaa ay hadalkaa leeyihiin oo markaa aad tiraahdo aad leedahay aad markaas ku dhawaaqayso aad ku hadaaqaysid oo aad leedahay qulta lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kala lifulaan hebel intaa hala siiyo hebel kalena intaa hala siiyo xilligaas aad jilicsan tahay baad leedahay hebel intaa hala siiyo ajar iyo fadli iyo thawaab waad ka helaysaa laakiin waxaa ka fadli badnaa oo ka ajar badnaa oo ka wanaagsanaa xilliga aad caafimaadka qabtay ee aad jeclo dareemaysay ee waxaaga la kala haraysay xilliga inaad wax bixisato ilaahay hortiisa aad alla wuxuu hormarsay subxaanahu caza wajal rasuulku صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتلمام إن الصدقة لتضفئ عن أهلها حر القبور صدقه waxay ka bakhtiisaa dadka qubuurta ku jira kulka iyo xakaarka qabriga ku haysa ka bakhtiisaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wacala aalihi wasalam maalinka qiyaame ee dadku jilicsan yahay qof walba wuxuu harsan doonaa sadaqadiisii adduunka ula soo baxay ee uu hormarsaday harkeeda ayuu qofka muslimka ay harsan doonaa wa inamaa yastadilu lmu'minu yowma alqiyaamah fii dilli sadaqatih ilaa dadka inta la kala dareerinayo ee la kala xukmayo qofka muslimka ay wuxuu harsan doonaa sadaqadiisii uu adduunka hormarsaday harkeeda ayuu harsan doonaa oo harbay u noqon doontaa sadaqadiisii maalinka qiyaame alla wuxuu yidhi subxaanah wayas'aluunaka maadaa yunfiquun rasuul allo waxay ku weydiin doonaan maxaanu bixinaa bay ku oran doonaan qul ilcafwa xoolihiina maalkiina wixii ka dheeraada bixiya ay maa fadala can alxaaja baahidiina wixii ka dheeraada ayaad bixinaysaan howlo adduun iyo kuwa aakhiro badanba oo dayacan ayaa lagu hagaajin lahaa marka wax la baxa saasay ku fasirayaan qataada iyo cataa saasay leeyihiin saas daraaddeed sadaqadu iyo waxbixintu qofka muslimka ahi waa inuu naftiisa baraa oo rasuulku sala allahu calayh wacala aalihi wasalam wuxuu ahaa ajwadu nnaas wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan buu tilmaamaya xadiidka cabdullahi bni cabaas fii saxiixi albukhaari rasuulku deeqa iyo waxbixinta sanadka oo dhan waa bixinayay haddana bisha ramadaan marka la soo gaaro kariixi lmursala sida dabayl degdegaysa oo kale ayuu rasuulku sala allahu calayh wacala aalihi wasalam u bixinaya sadaqada iyo deeqa iyo waxbixinta sadaqadu walaalayaal sida rasuulku inoo tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka kuwiina xanuunsanaya sadaqada ku dawaya rasuulku leeyahay daawuu mardaakum bisadaqa sadaqo ayaa qof bukaha oo jiran maradkii iyo xanuunkii ilaahay u keenay sabab ilaahay uga dhigay sadaqo uu bixiyey ilaahay xanuunka kaga qaado subxaanahu caza wajal sadaqadu qofka muslimka ahi waxay ka difaacaysaa masaa'ibka iyo imtixaanka adduunka iyo shadaa'idka iyo dhibaatada adduun ayay sadaqadu ka ilaalinaysaa sanaa'icu lmacruuf taqi masaaric suu waxyaabaha wanaagga aad samaysaa ilaahay masaa'ibta iyo imtixaanaadka iyo cudurrada xunxun iyo waxyaabahaasoo dhan baa ilaahay subxaanahu watacaala ka helanaya walidaalik rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayh wacala aalihi wasalam inoo tilmaamay xadiidka abu hurayra radia allahu tacaala canhu sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh warajulun baa ka mid ahaad warajulun tasadaqa bisadaqatin faأkhfaaha laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh
nin wax la baxay oo wax sadaqaysay waa ka mid a dadka carshiga raxmaanka haasan doona maalinka qiyaama. waxaa ka mid ah nin wax bixiyey oo sadaqadiisa si siriya u bixiyey, sadaqadiisa uu sirta ula baxay, gacantiisa midig waxay bixisay, bidixdiisu ma oga. waa sadaqa aada loo qariyey weeye oo lagu xil dheeraaday qarinteeda. ina sadaqata siri tudfi'u qadaba rabbi tabaaraka wa tacaala. sadaqada siriga oo qarsoodiga qofka uu bixiyo oo uu la baxo waxay ka daminaysaa oo ka baktinaysaa carada rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu ammaanay dadka wax la baxaya, wax sadaqaysanaya xilliga barwaaqada iyo xilliga dhibta iyo shidada lagu jiro. rasuulku wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam, subax kasta oo waagu baryo halkaa qoraxdu ka soo baxdo, laba malag baa soo degayo arlada imaanaya. waa soo degayaa labadaasi malag. maa min ayaamin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaan yanzilaan fayaquulu axaduhumaa allaahuma acdi munfikan khalafa. ilaahu qofka wax la baxa, wixiisa wax kala baxa, badiil khayr qaba sibuu mid leeyahay. mid kale wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafa. ilaahu dhinkii maalinkaa maanta wixiisa qarsada ee adkaystay xejistay wax la bixin, ilaahu wixiisa ka baabi'i. waa malaga habaaraya. sidaas daraaddeed wakhtigani iyo xilligani maalinkaagu waa maalinka aada nooshahay, maalinka aad wax la bixi kartaa, waa maalinka ay ruuxdu kugu jirto, inta carabkaagu qoyan yahay, taladaadu adiga aad talin kartid, wax goyn kartid, xoolahaaga iyo maalkaagu wax ka bixin kartid. waayo xilligaa nafta kuu timaadee la soo gaaro aajaasha, xooluhu way kaa wareegayaan, dad kalaa iskale, adiga way kaa wareegayaan. saas daraaddeed qofka muslimka inuu isbaro inuu wax bixiyo, weliba wakhtigan hadda lagu jiro oo xaaladdu maaragtay aada u adag tahay, oo abaara ay jiraan, oo dad baahan oo muslimiin ay jiraan. dadka muslimka in la gacan qabtaa loo baahan yahay. qof kasta inuu iska soo jaro wixii uu bixin karo, inuu dadkaas muslimiinta walaalihiisa ku tabaruco, inuu ilaahay ugu dhowaado subxaanahu caza wajal, inuu ogaado sadaqadiisu yowm min alayaam inay anfici doonto. xoolahaaga iyo maalkaada haysatid ee aada ku faanaysid, ee aad wax iskula tahay, ee aad isku waaweynaysiinaysid, ogow 3 nooc oo keliya mooyaane waxa kale adigu malihid waaye. 3 waa leedahayoo dee waxaad xoolahaagii waxaad cuntay oo calool gelisay oo halkay ku dambaynayaan garanayno, iyo waxaad ka xirato oo ku labisatay oo jirkaaga ku baaliyoobi doona, waxaad sadaqaysatay raasumaalka rasmiga ah ee la hubo ee lagu badbaadahayo adduunkan gaaban, aakhirada weynna ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu naxariisan doono, aada harkeeda harsan doontid. waa waxaad sadaqaysatay, waa waxaad ilaahay jidkiisa u horumarsatay subxaanahu caza wajal. saas daraaddeed nafteena inaan barnino wax bixinno. weliba hadyiga rasuulka waxaa ka mid a sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam, bishan ramadaan marka la soo gaaro rasuulku inuu aada wax u bixinayay oo deeqa iyo waxbixinta iyo ku dadaalayay. inaad hadyiga rasuulka qaadid sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam, oo aad waxaaga wax kala baxdid, oo aad ilaahay hormarsatay subxaanahu wa tacaala. tan qofka muslimkaa looga baahan yahay weeye. guntii iyo gabagabadii rasuulku sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam maalin maalmaha ka mida gurigiisuu neef araya ku qalay. markaasuu caaisha u yeeray radia allahu canha, caaisha cad hilibkii maxaa inoo haray, hilbihii maxaa yaala? rasuul allahu hal cad baa haray ama hal garab baa haray. garabkaa mooyaane intii kale waan haysanaa. waxaan is xasuusinaynaa inaan wax la baxno wakhtigaa la joogo. maalinkaagu waa maalinka aan nooshahay, maalkaaguna waa waxaa markaad ka talinayso ee gacantada ku hayso. saas daraaddeed qofka muslimka inuu wax la baxo, dadka walaalaha muslimiinta wax ku sadaqaysatid, ilaahay aad ugu dhowaatid subxaanah. waayo waa sadaqadu waa cibaadaadka kuwa alla ugu jecel yahay subxaanahu caza wajal. saas daraaddeed waa iimaankiisa ka markhaati kacaysa. wasadaqatu burhaan, qofka burhaantiisa, yaqiintiisa, iimaankiisa, sadaqada uu hormarsanayo waxa uu jecel yahay isagu ayuu bixinayaa oo ilaahay hortiis subxaanahu wa tacala uu bixinayaa. astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuh. wsala allahu wasalam
وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.